xalaqada maanta waxaan ka hadlaynaa mas'alo ku tacalluqda xaqa ay gabadha walaasha ay kugu leedahay. maxaa yeelay markasta waxaa soo laabta su'aalooyin cajiib ah. inta badan haddaan ragnahay xuquuqda ilaahay nagu waajibiyey oo gabadha walaasha kula dhalatay ay kugu leedahay waxaa laga yaabaa inaad ogsooneyn, inaan naftiina xasuusiyo, isla markaasna aan ka digo dadka xuquuqda gabdhaha la dhashay ku tumanayo. sida la socotaan walaalaha waxay ka mid yihiin raximka waxyaabaha in la xiriiriyay waajibka ay tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhaartay. haddana gabadh markay tahay waa gabar daciif ah, mar kasta waxay u baahan tahay sanad iyo waxay tiirsato. saas daraaddeed ilaahay subxaanahu wa tacaala gabdhaha xaqooda meel buu saaray. markay aabbahood joogana aabbahood ayaa nafaqadooda waajib ku tahay. haddii uu aabbaha geeriyoodana walaalaha ay kusoo guuraysaa, gabadha walaalkeeda nafaqadeeda laga rabaa. halkaas waxaa garan kartaa marka gabadhi inay mas-uuliyaddeeda ninka walaalka uu mas-uuliyad wax ka leeyahay. taasaan keenaysa marka inuu gabadha ninka markasta uu xasuusto gabadha walaashiisa. gabdhaha nacam, gabdhaha waa calool jilcan yihiin, waa baari weye. walaalahood say u jecel yihiin, horta ragga ma u jecel yihiin wiilasha, gabdhaha walaalahood saas ma u jecel yihiin. maxaa dhacay gabadha waxaa laga yaabaa inay wax kaa soo korisay, hooyada adigu da inay ku dhashaa laga yaabaa, oo adiga iyada kusoo korisay, kusoo caano siisay, kugu soo dhibtood. maanta waxaa laga yaabaa walaashaa meeshii ku dambaysa ma ogid. hooyada kaliya aabbaha iyo waalidka, hooyada iyo aabbaha walaashaa ku xigto. maxaa yeele waa qof daciif ah in loo naxariisto la doonayo. waxay yidhahaan culammada gabdhaha ilaahay subxaana wa tacaala naxariistoo ilaahay ku abuuray qaluubtooda oo laga yidhi markasta mas-uulka ha laga naqdo, hala ilaaliyo, hala garab istaago. waxa weye caatifo ilaahay ku abuuray weye. walaashaasay kuu jeceshaha adii ma u jeclid. walidaalika nabi muuse waxaa la yidhi calayhi salaam waxa badbaadiyey ilaahay subxaana wa tacaala markuu qur-aanka noogu sheekeynayay. waxyaabaha badbaadiyey gabadha walaashiisa ahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka noogu sheegay, aayadaha qur-aanka oo noogu sheegay. soo u badbaadiyey? saad garanaysaan fircoon waxaa la yidhi markuu wiil kasta uu dilayey, nabi muuse markiisa sanduuqa lagu riday oo ilaahay amray inay sanduuqa ku rido, gabadha walaashiisa waa joogi weyday. hooyadeeda waxay u tiri, waqaalat liukhtihi waxay ku tiri walaashiis muuse walaashiis waxay ku tiri hooyadaa ku dhahayso qusihi raacraacay tiri meeshu tago. gabadhi waxaa la yidhi sanduuqii daba socotay ilaa guriga fircoon uu ka tegey. guriga fircoon cid kasta ma gasha, nafteeda dan u hortaa la yidhi waa gashay. marka dambe ay tiri manii sheegaa qof nin ka faala qaadayso. idan sababta hooyadiis muuse usoo noqday gabar ay ahayd. walidaalika ilaahi subxana wa tacaala oo qur-aanka noogu sheegay in gabadhaas tamshi ukhtuka, nabiga gabadhaas qur-aanka lagu sheegay iyadoo ukhti la dhahayo, magaca ukhti la siinayo. waxaa ula jeedaa saas. waxaa soo naqnaqatay inta badan dad su-aalo weydiinaya dhahaya walaashay ma siin karaa zakada? waa wax cajiib weye. walaasha maxa inay sanad baaha inaad dembaadu ogtahay. haddii walaasha ay faqiir tahay, marsuufkeeda adigu kugu waajibay ilahay ku saaray. ninka ragga ah gabdhaha waa aragteen, waa dadaalaan, waxay leedahay nin inay guursanaa laga yaabaa, walaalkeed ayay maanta dhan daba socotaa. walidaalika waqtiga xajaaj ibnu yuusuf ayaa waxaa la yidhi gabar uu qabsaday, wuxuu qabtay walaalkeed iyo wiilkeeda iyo ninkeeda qafaal ku qabtay. markaas wuxuu ku yidhi kala dooro, midaan kuu daynaa mid dooro. waxay tiri nin waa la heli karaa ay tiri, wiilna waa la dhali karaa, laakiin walaal lama helaya tiri, walaalkay ii day. markaas wuxuu ku yidhi kulligiina nii day uu yidhi xajaaj ibnu yuusuf, sidii kutuba taariikhda ku qoran. macnaha gabadha waa laga yaabaa sacrifice inay u samayso. waxaad arkaysaa gabdho badan oo Yurub hadda soo aaday, aad arkaysaa inay shaqayso, maxaa dhacay guursanin, ee guurkeeda dib u naqatay oo guurka ka daahay, ee inta ilaahay ilmo sii lahaa maxay sacrifice-kaas dhan u samaysay iyo dhibkaas waxay u samaysay walaalkeeda yartaa inay soo dhoofiso. talow ragga mowqafkaas idinka abaalka cala alaqal abaalkaas ma gudnaa annaga hadda aragnahay, balse xuquuqda ilaahay nagu waajibiyey ayaa raba halkaa inaan ka sheego. arag gabadha faa'iidada leedahay shareecada islaamka xuquuqda uu kugu waajibiyey inaad ogaatid. xadiiska abi saciid alqudri nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man kaana lahu halaathu banaatin, ninka saddex gabar u dhalata, oo wuxuu yidhi halaatha akhawaatin, wa fii riwaayatin bintaani ukhtaani, ninkay laba gabar u dhalata iyo laba gabadha walaalihiisa dhalasha, oo fa axsana suxbatahunna xiriirkooda wanaajiyo. walaasha xiriirkeeda ma wanaajisaa? mas carruurtaada keliya ka fikirtaa. waddankay jirtaa waxaa laga yaabaa inay wuxuu leeyahay xaaladeeda aad ogeyn. wuxuu leeyahy wataqa fiina falahu ljanna. idan walaashay aniga aan marsuufkeeda iyo xaaladeeda aan la socdo, nabigu wuxuu i ballan qaaday janno inaan ku galayo, sidii gabdhahiigoo kale inay tahay. mas-uuliyaddaasa lee saaray. xadiiska kale wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam rawaayadda ahayd, wuxuu leeyahay halaatha akhawaatin oo halaatha banaatin ukhtaani hadday tahay wuxuu yihi falahu ljanna. waa laftigeeda. can umu salama radia allahu canha xadiiskan dhegeyso,
waxaa laga yaabaa walaasha anaa weligaa telefoon u dirin aa wicin xaaladeeda la soconin ninaan qaba ilmo badanee haysataa yuruba ku nooshahay walaashaa xuquuqdeeda ma siisid xataa teleefon uma dirtid xataa soomaha nabiguna wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam haddaad walaashaa ka warhaydid jannada ayaa ku galaysaa sidii gabadhaada oo kale walaasha caruurteeda ma ogid marsuuf ma siisid bal waxaa laga yaabaa walaasha ina xaaskaaga ugu eexatida laga yaabaa ma dhahay xaaska ha laga eexdo laftigeeda cadaalo u fal laakiin nin waxaa laga yaabaa gabadha walaashaa gurigaaga inay imaan karin maxaa dhacay islaantaada ka baqaysaa xuquuqda maata gurigaaga inay walaashaas u gali weydo ee caruurteeda ay eedada u tahay marka maqaalibta inaan gedanin maxaa dhacay waxaan ilaawna xuquuqda ilaahay na saaray xadiiska umu salama dhageyso wuxuu leeyahay radiyallahu anha samictu rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam nabiga nabadgelyo xariis korkiisa ahaatee wuxuu yiri yaquulu wuxuu yiri man anfaqa calaa bintayni uqtayn ninka marsuuf u qora laba gabar oo dhalay ama laba gabar oo la dhashata as maxaa gabdho badan ku dayacan yihiin Soomaaliya maxay ku dayacan Yurubtan ay ku dayacan yihiin wuxuu leeyahay nabiga alayhi salaatu wasalaam oo dawaata qarba u ah wuxuu yiri hadduu ku dadaalo kaanata lahu sitratan min an-naar naarta ka xijaabayan qiyaamaha gabadha walaasha marsuuf u qorto la rabay inaa marsuufteeda gaajata ay waxa leedahay sanadka markii gaar zakada ma siin karaa billahi alayk xuquuqda wala raximka waxay leedahay gabadha xuquuqda kugu leedahay waxa ka difaac inaad difaacdid gabadha inaad difaacdid oo xuquuqdeeda difaacdid oo rag badan ayaa waxa jir maanta gabadha walaasha ay qabaan ay ku cayaarayaan adigana ma ku iimaan karto maxaa dhacay adiga ma kaaga cabsanayo ragga islaamkan wuxuu qabaa gabadha walaalka oo la qabo Soomaalida maamahdeeda markii laga soo tago ina ninkaas oo kugu ixtiraamo oo yiraaho gabadhaas ninba isoo siiyay walaalkeeda joogo laakiin gabar walaasheed oo og yahay ninka qabay inuu walaasheed soo raacdeynayo oo dhahay war ninkaaga u tag ana hay iimaanin kuma cisho karo meelan ku dhahayo ninka wuu dayacay gabdhaha qaarkood ma furna walaalna waa leeyihiin xuquuqdaas ismacuu hada xadiiska imaam Bukhari soo wariyay Macqal ibn Yasaar radiyallahu anhu wuxuu leeyahay ninba yimid zawajtu wuxuu leeyahay uqtan li min rajul ninba walaashii ku daruuyin fadalaqaha waa soo furay hadduu ku ixtiraamayo ninka walaasha qabo adeeyna kugu xirantahay markuu ka arko ina walaasha garab taagantaa kugu ixtiraama laakiin walaala soo wicinin ka garab haynin asagan waa cabidinaya gabadha ugu dhalatay xuquuqdeedan adaal ilaahay ku weydiinaya biri maxaa dhacay u soo cararta malaha hadduu ogaalahay inuu walaal garab taagan gabadhaas saas ma sameeyay ninka saas daraadeed Macqal ibn Xuurin baan gabar u dhisay aan ku dar waa soo furay xataa meelal tashanur markuu furnay markii ciidada dhameysatay ayuu hadan yimid wuxuu gabadha mar labaad isii ilaa markii ciidada dhameysatay rajactu wax ma laha inuu doonto waliga doonto وكاس عوري لا والله زوجتك وانكو غوري وفرشتك وانكو فراش غورغيده وكرمتك وانكو كرامي ولا شيء كو امني وصوفرتي والله انا كسينينو نينكي نبيغي اسكولا تاغين عليه الصلاه والسلام نبيغ كوما ايدينين لكن نين كان هل وحبا لو ايديي walaalka maxay gabadha ayo nink waa rabtay ninkeedina ku naqato gabdha walaalaha qaar waxa jira ayagana nin inaag isjecel oo israba inay isku laabtaan wuxuu leeyahay ninkaas mar uu xumeeyay aniga wax ii sameeyay ma ku naqan kartid ma arki karo diinta ma qabto haddii walaasha ay raali ka tahay ninkan ay ku keensatay ay ku tiri ana raali ka xaq uma lidina u diidid wadaalika aayad quraan ku soo degtay Macqal ibn Yasaar markuu saayiri ay ninka gabadha u diiday ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu aayad quraan ku soo diray fala ta'dhaluhunna an yakahna azwajuhunna war gabdhaha walaalihiina haddii ninkooda rabaa inay ku naqdaan ha u diidina leeyahay nabiga uu yeeray aayadaha soo degtay Macqal ibn Yasaar markaasuu yiri al'aana ya rasuul hadda aan golo yiri laakiin nabiga kuma canaanan Macqal ibn Yasaar ma dhihin maxaa ninka ugu diid maxaa garow ku lahaa laakiin golaashiisa ninka la safataa rabto inay ilmaheeda u laabato ninkeeda markaas walidaalka walaalo waxa jira gabadha walaashiisa laga guursalaya oo dhahay ninkaas inuu maani xumeeyay ninkaas wuxuu igu sameeyay maxaa ku xumeeyay gabadha walaasha hadeerta u guuri cadliga ilaahay quraanka waa diiday walidaalka waliyul caadid sharci islaamka fiqiga wuxuu qabaa hadduu ninka aabaha daaway xataa gabadhiisa inuu guuri rabin oo sabab uu sheegin asoo jooga la mehrinaya asagoo walaayad waa laga qaadaya suldaanka ka qaaday tadxiina usuumeysay waajib kugu tahay walaasha naftaadina hurti raaxadaada ina ka hurtid walaasha daraadeed ismuu xadiiska Jaabir ibn Abdullah abiisa dagaalka ku dhintay Abdullah wuxuu kaga tagay ala dhalatay Jaabir sagaal gabdho walaal dhalatay sagaalkii gabdhood walaalaha ahaa waa soo barbaariya wuxuu u siir gabar u guurso ninka wuxuu jecel yahay naftiisa inuu gabar yar oo bikra ah oo asoo ku bilaawdo uu jeclaado waa guursado yiri markuu guursado nabiga uu yarmaan wuxuu yiri maxaa guursatay markaasuu yiri gabar islaam weyn garooba guursado islaan garooban guursaday markaasuu hal la tazawajta wuxuu yiri bintan tulaaciba wa tulaaciba maxaa gabar aroosayso bikra ah oo asla cayaartaan oo isku dhaqan barataan nabiga runkaas ugu jawaab wuxuu rasuulka Allah aabahay wuxuu yiri markuu geeriyo sagaal gabdho walaal uga tagay hadda gabar ayagoo kala da'dooda u keeno
aan guursado waxa laga yaabaa inay iga dayacaan gabdhaha walaalahay saas daraadeed naftiisu garoob u guursaday sidii walaalihiis gabdhaha uu ilaaliyo nabiguna waa ku amaar arrintaas khayran uu yidhi raka khayran uu ku yidhi nabiga alayhi salatu wasalaam nabiga alayhi salaatu wasalaam gabar ma la dhalatay nabiga siladeeda gabadha waxaa la rabaa inaad xariirisid aad darajaysid markay telefoonka kugu soo dhigto ar walaasha ay soo wacday adiga inaad wacdid waa gurigaaga markay timaad inaad qaadid maxaa dha walaasha wey nabiga alayhi salaam gabdhaha walaala lama dhalanin laakiin waxaa jiray gabdha ay naas dhan nuugeynaa jiray waxaa lihi sacdii dadkii nuujiyi jirtay sooma shaymaa bint alxaaritha nabigay la nuugtay nabiga ma ogso dagaalkii oo bani sacd markii la galay aa la soo qabta qafaash dadka la qafaashaa ee gashay shaymaa waa la soo qafaalay markaas markay nabiga aragtay waxay ku tiri yaa rasuulallah inni ukhtaka min arradaaca rasuulka oo naasa isla nuugnay tiri walaasha ay aniga naaska isla nuugteen nabigu waa yaabay gabadhihii dadka la soo qafaasho oo maxaabiista ahaa gabar walaashiisa ku jirta nabiga alayhi markaas wuxuu yidhi wama calaamatik maxay tahay uu yidhi calaamadda inaan walaalka ah maxaa ku cadaynaysaa markaas waxay tiri dhabarkaaga fiiri tiri qaniinshada anagoo yaroo isla cayaarayno naas markay isla nuugayeen dhabarkaa kaa qaniina kugu yaalay tiri nabiga waxaa xasuusay qaniinadii uu arkay nabigu waa isceli waayey marka ugu horreysay muxuu qabtay go-iisoo firaash wuxuu dhulka u firaashay walaashiisa wuxuu yidhi kaalay horta dhulka ka kacuur go-eyga ku faray markaasuu offer siiyey wuxuu uu bandhigay adigina walaashaa maxaa siisaa walaashaa ninkii qabaa dayaca laga yaaba mana qabno mana yeel marman uu maqantin walaashaa faqiiray ku tahay dadka kala marsuufa adigina inta rurtaada ku marsuufataa ma siisid wax ma siisid waajibka ilaahay ku saaray miyaad ogsooneyn nabiga markuu u firaashay gabadhii uu u yeeray shaymaa wuxuu ku yidhi khiyaarka qaado laba arin qaado wuxuu yidhi inaad nala joogtid in axbabti fa cindii haddaad jecesha wuxuu yidhi maanta aniga gurigayga anaa ila joogaysaa walaashiis waa isnaas nuugeen maaha walaashiisu caloosha iskala soo baxeen maaha weli wuxuu yidhi haddaad jeceshahayna anay agteeda joogaysaa kaale haddaad rabtidna wuxuu yidhi wa in axbabti amtactuki wa tarjici ilaa qowmi qoomkaaga u dhaqanaa riwaayadda kale waxay ahayd wuxuu ku yidhi sali tucdaa waxaa rabtay weydiisay walaashayday wuxuu leey washfici qofka rabta u shaafic hebel haleeday dheh walaasha haddii ku tiraahdo waxaasaan kaaga baahanahay ma dhihi leed kan anu ii xereeya ma dhihi leed nabigu wuxuu yidhi qofka hartidayso oo dadka la soo qafaale waxay tiri rasuulka allow aniga walaalkayow waxaan rabaa tiri ehelkayga inaa ku naqdo waxaa la yidhi wiil ghulaam addoon iyo gabar kale jaariyad addoommadu siiy wuxuu yidhi kan saahi ka dhigo yidhi guriga u ku siiy gabadha miiraasay kugu leed dhaxalkeeda ragaa dhaco gabdhaha maanta markay nala soo waco waxay leeyihiin gabdhaha aniga waa ka tanaasulin wiilasha ugu tanaasulna maxay ugu tanaasuli xaqeed maxaa wiilku wuxuu rabaa inuu dhaco xaqeed inuu dhaco rabaa نتقي الله في أخواتنا إخواني قبلها ولا لهن أكبقنا